munaasabad si hersana loo soo agaasimay isla markaana lagu caleema saarayay caaqil cabdiraxmaan sheekh mursal xaaji cumar ayaa lagu qabtay magaalada Buuqoodle ee xarunta gobolka Cayn waxaana munaasabadaasi lagu caleema saarayay caaqilka ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Cayn iyo qaar kamid ah waxgaradka iyo ismada Buuqoodle ay ugu horeeyaan garad Cabdirasaaq Garaasofo Duraan Sultan Saciid Cismaan Cali ugu horeyn munaasabadaasi lagu caleema saarayay caaqil cabdiraxmaan sheekh mursal xaaji cumar waxaa ka qayb galay odayaal iyo waxgarad waxaana halkaasi ka hadlay qaar kamid ah odayaashii waxgaradka beesha warfaa cali gari oo soo dhaweeyay caaqilkan cusub ee lagu caleema saaray magaalada Buuqoodle ee xarunta gobolka Cayn isla markaana ay caleema saartay beesha warfaa cali gari waxaana hadloodii kamid ahaa beesha reer warfaa cali gari waxaanu soo dooranay caaqil cabdiraxmaan sheekh mursal xaaji cumar ayaanu soo dooranay inuu na hogaamiyo oo qabiilka reer warfaa uu odaygiisii noqdo caaqilkiisii ummadda kale ee islaamka ee tolkaana caaqilkoodii uu yahay sharafta badan ee lagu soo doortay caaqil cabdiraxmaan sheekh mursal xaaji cumar aad iyo aad baan marka ugu horeysa u hambalyeynaya marka labaad waxaan u mahad celinayaa beesha reer cali gari guud ahaan gaar ahaana beesha reer warfaa sida wanaagsan ee ay u soo xuleen caaqilka dhallinyarada ah ee da'da yar waxaan leeyahay ilaahay ha idinku anfaco annagana ha nagu anfaco mayaal waxaa yaalla hambalyo iyo duco iyo mahadcelin marka koobaad waxaan u mahadcelinaynaa ilaahay waxa ka yeelo sida wanaagsan ee sharafta leh ee qiimaha badan ee urursan ee ay u soo doorteen caaqilka ayaan uga mahadcelinaynaa midda labaysa waxaan leeyahay caaqilka cusub caaqil cabdiraxmaan sheekh mursal xaaji cumar ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu fududeeyo xilka iyo mas'uuliyadda loo doortay ilaahay ha u fududeeyo inkastoo nin sheekha yahay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo beesha reer warfaa cali gari oo runtii ah reer ballaaran oo markii uu ka dhintay caaqilkoodii hore caaqil axmed xasan xaaji cumar si wada jira oo dhammaystiran oo rag iyo dumar yar iyo weyn dabad iyo gudo wax tabaraaruga aan lahayn ku doortay caaqil cabdiraxmaan sheekh mursal xaaji cumar runtii arrintan waa uga mahadcelinaynaa waa arrin qiimo badan iyo miisaan badan ku fadhida mar labaad waxaan hambalya leeyahay caaqilka cusub cabdiraxmaan mursal xaaji cumar oo maanta shaacintiisii iyo caleemasaarkiisii halkan aan u joogno yar xagga dowladda iyo qaabka dhaqanka waaxda dhaqanku ay u wada shaqayso ama haddaan yar u beydho kelmadda koowaad inaan idinka mahad celiyo marka koowaad ducaadii aad ii ducayseen ilaahayna aan weydiisto inuu ii aqbalo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa barya ducooyinkooda wuu aqbalaa siduu ilaahay inoo sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala markaan waxaan weydiisanayaa marka koowaad ducadiina inuu ii aqbalo marka labaad talooyinka aad soo jeediseen ee qiimaha badan iyo dardaarankiina wanaagsan inuu waafajiyo waxaan kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanayaa xilkaa culus ee runtii iga da'weyn aanan aqoon u lahayn qoladeeda culimadu masaalka caaqilka caaqil cabdiraxmaan sheekh mursal xaaji cumar idinkuna waxaan leenahay waa mahadsantihiin ilaahay subxana wa tacaala ha idin barakeeyo caaqilkana waxaan leenahay caaqil soo dhowow raaskaagii baa ku soo saaray caaqil bay kaa dhigteen si midaysan bay kuu soo saareen tolkaa iyo garbahaagii iyo cuqaashaadii bay kuu keeneen iyaguna waa ku aqbaleen annaguna waa ku aqballay tan waxqabadkana ninbaa wuxuu yidhi baa la yidhi
war aan ku gartay hadal aan ku gartay buu yidhi qofka daacadnimadiisa iyo waxa qalbigiisa ku jira iyo raganimadiisa iyo kartidiisa waa laga gartaa hadalka hadal aad u qiimo badan hadal shareeco hadal diimeed hadal dadnimo ku jirta ayaad runtii soo jeedisay munaasabada ayaa ahayd mid si hersara loo soo agaasimay isla markaana lagu caleema saarayay caaqil cabdiraxmaan sheekh mursal xaaji cumar oo ay ka qayb galeen isma iyo waxgaradka beesha warfaa caligari ayaa ka qabsoontay hotel rays oo ku yaala Puu Hotel. Xuseen Xasan Cadde, telefishinka caalamiga Kalson TV.